بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu halkan maanta ku qabanaynaa barnaamijkeenu ugu talagalay wada sheekaysi oo khuseeya barnaamijka la yiraahdo co-working space-ka ama goob shaqo wadaag sida daraadeed waxa jira muddooyinkii ugu dambeeyay in ay soo kordhayeen goobaha shaqo wadaag oo laga furo magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalka Somaliland iyadoo ay soo badanayaan dhalinyarada ku xidhan goobahaasi inagoo taa tixraacayna waxaynu ugu talagalnay in aynu ka war doono faa'iidada ay soo kordhiyeen goobahaasi iyo wixii laga bartay sida daraadeed halkan waxa aynu caawan ku soo casuunay laba khubaro ah oo dabcan ka socda laba goobood oo goobaha shaqo wadaaga muna maxamuud cabdi muna toosane oo ka socota harhab oo ku taala Hargeysa una qaabilsan communication and community officer ka sarkaal amuraha maxaan ku rahaa communication ka iyo bulshada ku xidhan barnaamijkaas harhab uu sarkaalka maamula dabcan iyo maxamed Awil oo isaguna ka socda Bigil Hub maxamedna wuxuu waa maamulaha guud ee goobaha ama haabiska Bigil Hargeysa sida daraadeed waxaynu doonaynaa muddo kooban inaynu halkan inala wadaagaan khibradooda aqoontooda iyo dabcan goobahoodu adeegga iyo facility-ga ay u qabato guud ahaan dalka gaar ahaan ganacsatada kuwa yaryar kuwa dhexe kuwa weyn muna waxay haysataa degree ama BA bay haysataa communication and media dabcan waxay hadda diyaarinaysaa master of good governance iyo leadership ama maamulka iyo dawladnimada hogaaminta iyo dawladnimada si lamida maxamed isagu wuxuu muddo uu ku soo shaqeynayay teknolojiyada iyo diyaarinta webska iyo applicationada maxamed wuxuu haystaa degree IT ayuu haystaa si lamida wuxuu diyaariyay diploma maamulka mashaariicda muddo badanna wuxuu ku soo shaqeynayay maamul ahaan goobo kala duwan waxaan marka koobaad aan jecelahay marka inaan su'aasha koobaad aan siiyo inagoo ku bilaabanayna muna maxamed cabdi bal in ay inoo ka xog waranto goob shaqo wadaag harhab waxay qabtaan iyo dabcan bilowgeedii wixii ku dhaliyay marka waxaan ku soo dhaweynayaa muna بسم الله الرحمن الرحيم أدد ما حسنت سعيد حاشي يشق دونه برنامج كان نسكسو دبردي عاوة هرهب وحلو سو جابي ولا الحرجيسة هب مركا هرهب و هب كي جهري جودهان دولك الصومالي دكتور أما شنطة الصوماليات لقى هرجليو مركي جهريسي وحنا الأساسي أما بحرج لقى شرط دبيا قدي لما كل يو سديد طبعاً تاسو مركز مدحبين كحين كسومالان عبد الرحمن سليع وحرق كشري سديد بقى habka waxa la yiraahdaa waa fikrado ama aragtiyo ku cusub geeyiga Soomaalidu degto iyo Somaliland intaba marka si guud harhab waxa ay dhalinyarada ka taageertaa dhinacyo kala duwan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaana siisaa barnaamijyo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin barnaamij la yiraahdo accelerator program oo ah barnaamij tababaro iyo maxaa la yiraahdaa maalgelin kala duwan lagu siiyo dhalinyarada waxa kale oo ay harhab bixisaa business incubation services ama adeegyo business incubation la yiraahdo oo markaasi isugu jira infrastructure macnaheedu waxa weeye imkaaniyaadka dhalinyaradu ay u baahan tahay Soomaaliya kalmada ugu soo dhow oo waxa kamid ah ubuucda barnaamijka aynu halkan u fadhinayno dhalinyarada iyo ummadeenaba ku fahansinay ah goobaha shaqo wadaag ama waxa afqalaad loo yaqaan co-working space waxa kale oo ay siisaa dhamaan co-working space-ka ama goob shaqo wadaagaasi imkaaniyaadka ku xeernaa muhiim ay tahay markaasi in dhalinyaradu hesho harhab waxa ay fursad u siisaa dhalinyarada isticmaala in halka aynu caawa ku sugannahay oo ah madasha lagu qabanayo kulankan ama dood wadaaga ah oo ah hoolka xafladaha iyo kulamada ugu waaweyn ee ka dhacaan harhab qofka isticmaala co-working space-ka harhab waxa uu haystaa fursad kale oo ah in harhab siiso fursad inuu isticmaalo halkan xaflad ku qaban karo dad badan oo soo keeni karo
meeting roomka ama qolka shirarka lagu qabsado dhalinyarada isticmaasha co-working space-ku fursad bay u haystaan iyaguna way isticmaali karaan waxa kale oo kamid ah training room ama qolka tababarka harhab adeegyada ay kaga duwan tahay habska waxa kamid ah inay siiso fursad ay dhalinyarada isticmaasha co-working space-keedu ay iyaduna ku isticmaali karaan barnaamijyada ay sameeyaan ama tababar ku sameyn karaan ku tababari karaan iyo sidoo kale in fursadaha ay harhab maxaa dhahday dhalinyarada siiso haddaan si kala u dhigo barnaamijyada taageeraya dhalinyarada inay iyagana loo siiyo fursad inay ka faa'iideysan karaan macnaheedu waxa weeye kaliya uma tixgelina dhalinyarada isticmaalaysa co-working space-ka inay adeegaas iyo inta iyaguna waajibka ku ah lacagta inay bixiyaan uma tixgelin oo kaliya laakiin waxay fursad u haystaan inay si lamida sida dhalinyarada tababarada iyo ku jira inay iyaguna adeegyada ay iyo barnaamijyada ay dhalinyaradu u qabato harhab waxa kale oo walaalo aan siinaa dhalinyarada waxa la yiraahdo talahan marka equity fund la siiyo amaba maalgelin la siinayo equity nooca gaar ahaan loo yaqaano waxa leenahay barnaamij la yiraahdo tarmiye crowdfunding platform waa platform dunida kale aad buu uga shaqeeyaa laakiin Soomaaliland uu ku cusub yahay qofka dhalinyarada ahi marka uu fikradiisa ganacsi tababarka kadib lagu qanco maalgelinta uu harhab kaga guuleysto iyo goobaha kale harhab ay ku xurayso inta waxa laga yaabaa in aan ku filan qofka dhalinyarada ha maalgelintii uu doonayay in uu ganacsigiisa bilowga ah uu ku sameeyo marka harhab waxay mar kale fursad u siisaa inuu isticmaalo platformka tarmiye crowdfunding platform oo ah platform teknolojiyada casriga ee ugu dambeysay lagu isticmaalo wuxuu qofka dhalinyarada ku qancinayaa asxaabtiisa ehelkiisa dhalinyarada kale ku xiran yahay iyo qof kasto Soomaaliland guud ahaan joogo iyo dhulka Soomaalidaba intuu u soo bandhigo fikradiisa ganacsi uu yiraahdo waxaan doonayaa inaan target halkaas gaaro fadlan waxaad iigu deeqi karto si aan ganacsigayga ficil ugu bedelan u hirgeliyo igu soo caawi halkaas markaas dhalinyaradu ay fundraising uga bilaabaan marka ay ku gaadhaan hadba halka ay doonayaan inay hiigsadaan marka tarmiye crowdfunding platform waa platform kale oo dhalinyarada u siinaya inay lacag ku urursan karaan qof kasta oo Soomaali ah shanta dal ee Soomaalidu degto joogo markaas oo ku qancinaya aragtidiisa ganacsi waxyaabaha kale ee walaalo dhalinyarada aan ka caawino waxa kamid ah ma uu sameeyo networking events talaha waxa jira barnaamij la yiraahdo ardayga hal abuurku wuxuu dhalinyarada ka caawiyaa inay horto dhalinyaro kala duwan oo talahan Hargeysa ku nool inta isku yimaadaan fikrado isweydaarsan karaan mowduuc baa laga doodaa waxa la soo casuumaa dad khubaro ku ah dhalinyaro kale la soo casuumaa oo si furan inta lagu xayisiyo baraha bulshada qof kasto dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira markaas xiiseynaya mowduucaas oo ka soo qayb gala qofka khibrada ah halkan kula wadaaga markaas khibradiisa iyo aqoonta uu leeyahay mowduuca marka laga hadlayo iyaguna su'aalo weydiiyaan halkaas aqoon isweydaarsi oo ka dhaca kadibna waxa ka dhaxdhaca oo kale sashan la yiraahdo networking amaba in dadku isbartaan adeegyada ay bixiso waxa kamid ah waxa kale aan leenahay canteen-ku dhalinyaradu waxay ka heshaa salahan intii suuq qofku doonan lahaa wixii uu ka cuni lahaa qado ama refreshment jaban oo markaas tii suuq la leeyahay laakiin qiimahaan ka jaban oo intuu sii socon lahaa waqtigu uu ka lumi lahaa lacag transportation ay ka bixi lahayd halka dambe ku taala wad arki doontaan sidoo kalena waxyaabaha ay harhab leedahay bay kamid tahay harhab waxay ka shaqeysaa guud ahaan Soomaaliland iyo inta badan Soomaaliya meelaha ay maalgelinaha siisay waxa kamid ah Maroodijeex Awdal Gabiley oo marka Arabsiyo Jaleelo Togdheer Sool Garoowe Boosaaso Muqdisho imika waxa qorshaysay isku sii fidiso Soomaaliya inteeda kale hadii la idmo Soomaaliland si buuxda ay markaas u shaqeysaa inta ay jirtay harhab waxyaabaha u qabsoomay ugu waaweyn waxa kamid ah in ay harhab tababartay dhalinyaro gaadhaysa 500 oo qof dhalinyaro imkaan ku qiyaasi karo oo markaas isugu jira hablo iyo wiilalba inay sidoo kale ay maalgelisay ganacsiyo bilaabmay startups waxa loo yaqaano oo markaas ku dhawaad imika 200 ah oo boqolkiiba
maxaan dhahday 40 ay dumar yihiin habla yihiin من aad bay mahadsan tahay dabcan xog badan baad ayadna la wadaagtay waxaana taas ka muuqanaysa in ay fursadaha ay bixinayso harhab ay tahay fursado aad u badan oo aan laga goyon karaynin taasana keenaysa in waqti badan dabcan aan baan jeclaadin si wado waxaan markana jecelahay maxamed caawil isaguna ka socda Bigel Hub in uu isaguna inala wadaago bal Bigel Hub sidii ku bilaabmaysay waxa dhiirigeliyay inay bilowdo hadda halkay taagan tahay iyo dabcan xogaha guud ee aan ka heli karayo ama uu ka heli karayo qofka startup ganacsigiisu bilow yahay ama ganacsigiisu uu da'yar yahay muddada maxaan ku raahdaa cusub ku jiro maxamed adiguna adigoo waqtigaaga qaadanaya nala wadaag marka hore waan salaamayaa Saciid iyo Muna oo harhaba aad iyo aad baan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha barnaamijka soo qabanqaabisay shaqtoon iyo sida quruxda badan ugu talagalay in dadka loo fahansiiyo co-working space-ka iyo waxa uu ka hadlo marka hore tan ku bilaabo Bigel Hub waxa la aasaasay imika sanad ka hor sababaha keentay baahiyaha keenay waxa kamid ah in dhalinyartii startups-ka ahayd ay waayeen environment ay ku soo bandhigaan hibooyinkooda kala duwan haday noqoto kii programming-ka haday noqoto kii film designer-ka haday noqoto kii shaqo kala watay doonaya company-giisa meel uu ku soo kabco maadaama wadankeena ka warhayno inay jiraan dhibaatooyin badan oo ku saabsan kirada oo guryuhu iska qaali yihiin taas ayaa keentay markaa in anaga oo dhalinyaro ah oo markii hore lahayn xafiisyo noo gaara kadibna aan ku fikirnay inaan sameysano co-working space kaas oo naga faa'iideyno anaguna ka faa'iideysano dad kalena uga faa'iideyno Bigel waxyaalaha uu hirgalay tan sheego intaan aan jirnay aan ku guuleysanay inaan space-kii aan ugu talagalnay muddo 3 bilood ah ku soo buuxino dadkii ay cashan ay bartaan oo aan ku qancino service-ka iyaga iyo furfurnaanta networking-ka dhexdeeda ay ka helayaan waxa kale oo aan sameynay wax loo yaqaan waxaan soo aruurnay more than 20 businesses oo ku saabsan startups oo qaarkood yihiin technology qaarkood yihiin construction qaarkood yihiin frameworks la taliyayaal dadka kuwa siya talooyinka ku saabsan ganacsiyada iyo waxaas iyo dad kale oo si remote ugu shaqeeya company waaweyn oo magaalada ka jira taasaan ayaan ku guuleysanay inay dadkaas ku shaqeystaan waxa kale oo aan qabanay tan Bigel nahay sameynay barnaamij waxa jira Bigel la yiraahdo 365 community barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay oo hol deegaanada Soomaaliya deegaan dadka businessyada startups-ka iskale iyo kuwa businessyadoodu yihiin stage-ka labaad ku jiraan ee xogaa shaqeeyeen inaan isku keenno kuwaas oo ugu talagalnay inay noqdo madal ay ku dad wadaag iyo khibrad wadaag ay ka wadaagaan barnaamijkii ugu horeeyay waxaan qabanay sanadkan dhexdiisa aan ugu ku socodnay businessyada Hargeysa ku yaala more than 30 businesses waanu kan badan ayaa isku yimi qaarkood waxay soo bandhigeen product-goodii qaar waxay qabanayaan service kala duwan oo like media agencies ka sameeya digital marketing iyo branding-ka kuwaas oo dhan oo isku jira iyo online marka businessyadaas aan isku yeernay waxay ahayd xafladan ugu talagalnay inaan laba qaybood kala jibinayo qaybna ahayd networking event oo ah event ku saabsan bandhigan qof kasta wuxuu hayo kii product hayay kii hayay service oo dadka loo soo bandhigayo dadambana waxaanu ka dhignay debate ugu saabsan aan ugu talagalnay inaan kala talino expert aan ku soo casuunay business ku saabsan oo ah kuwaas oo ugu talagalnay inay dadka ka jahil saaraan caqabadan ka haysta financial oo waxa maaliyad businessyadii waxa dhibta ugu badan ay hor istaagto waxa kamid ah marka imika qofka bilaabo shaqadii oo fanki weyn ka raadinay marka barnaamijkan 365 waxaan ugu talagalnay inaan isku xidhno startups-ki iyo baanankii aan ku soo casuunay baananka Soomaaliland aan ku soo casuunay laftigooda iyo wasaaradda iyaduna aan ugu talagalnay marka dadka caqabad markii su'aalaha weydiiyeen wixii ka soo baxay nooga soo baxay feedback ah inay dadku ka aaminsan yihiin baananka ay ka baqayaan inay ka qaataan diinti marka si aan ugu dhiirigelino barnaamijkaas aan u sameynay dadkaas oo platform baan ku haynaa waxaan insha Allah rajaynaynaa in next year iska dambana aan qabanno programs kuwa ka weyn oo fan na loogu helayo
hadduu alla yiraahdo haddaan soo koobo bigil halkii loogu talagalay sanadkaas ay jirtay alxamdulilah way gaadhay waxaan rajaynaynaa inaanu dadka sii siino service ka duwan kuwaas waxaan maxmed aad buu mahadsan yahay iyo bigil hub oo dabcan adeegyo badan qabata waxaan mar labaad aan jecelahay bal inaan ku celiyo maxamed isla su'aal uun daba socota adeegyada ay qabato bigil hub marka uu qofku yahay qof cusub laga yaabo inuu yahay qof dhalinyaro ah da ahaan aad u yar suuqa uu iminka soo galay fikrad haysta wanaagsan laakiin aan garanaynin siduu fikradiisu ku horumarin lahaa sidee buu qofkaasi uu ku ogaan karayaa ama uu isku diiwaan gelin karayaa ama uu xog la xiriidha bigil hub ama hubiska goobaha shaqo wadaag uu ku ogaan karaa tusaale ahaan haddii aad khibradiinoo kale aad nala wadaagtid dad noocaas oo kale ah iyo siday qofkaasi isku diiwaan gelin karo ama dhalinyaradaasi isku diiwaan gelin karaan bal Maxamed walaal sidii marka hore aad baa maasantay waxa jirta laba mar baa jirta qof markuu cusub yahay oo yahay qof soo kacayo istaraba oo na doonayo meel uu fikradiisa ku soo bandhigo midda koowaad ee horta anagu waxaan isticmaalnaa platforms kala duwan like Facebook Instagram Twitter ayaan isticmaalnaa waxa jira marka dadka badankoodu waxay nagala soo xiriiraan waxa ku saabsan bogogayga page-gayga iyo contact-kayga dhex yaala internetka ay soo xiriiraan bigilna waxyaalaha ay co-working space-ka wadanka ku yaala ee horta aad uga sii dhowdaha kamid ah waxaan ku naalnaa centerkii suuqa oo qofkii meel kale oo cayiman ma aha oo Cumar Xaashi building ka soo horjeedka Premium Bank ayaan ku dhex jirnaa marka halkaas waxay u fududaynaysaa qofka markuu suuqa yimaado jasna soo kol garay qofkii aan tilmaamta garanin inaan u fududayn ta kale ah qofkan fikradii keensaday ee doonaya sidii uu fikradiisa ugu shaqeyso qofku waxaan sameynaa badanaa hadduu qofku nagu cusub yahay fikradna uu haysto waxa jira team kale oo laga yaabo inay la background yihiin kuwaas oo kale waxay ka caawiyaan inay qofka dhalinyarta ee cusub munay wax sheegtay markii dhaweyd in ay adeegyo kala duwan ay qabato harhab dabcan oo aad u fara badan laakiin adeegyada ay qabanaysaa markaynu ka eegno dhanka ganacsiga waxaad ugu tala gasheen in ganacsatada yaryar ama kuwa bilowga ah ee dhaqaajiska waxa la yiraahdo imka in aad adeeggaas siisaan iyo soo dhaweynta iyo nidaamka kala duwan mise way soo gali karaan shirkadaha waaweyn ee iyaguna hore ganacsiga iyagu mid ugu jiray qeen gaari wadnaasanta walaalaan horta co-working space-ku waniga hore sheegayo iyo guud ahaan habska waxa la isku dhaafo co-working space-ku waa nud kamid ah habka shaqadiisa marka waan aragti ku cusub guud ahaan geeyga Soomaalida waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro kale oo bigil iyo ay kamid yihiin kuwa la midka ah ay aragtidaasi maanta ku shaqeynayaan qaarkood habiska maanta jira harhab bay ka shaqeyn jireen oo waxaan ku faanino runtii in marka aragtida tolmoon ee ummaddu u baahi qabto intoo la qaato wax lagu soo kordhiyo suuqi la keenaa waa wax mudan in la dhiirigeliyo runtii co-working space wala marka laga hadlayo afar qaybood buu qaybsamaa laakiin harhab ahaan waxa uu furan yahay co-working space-keedu qof kasta oo ganacsi leh oo markaasi doonaya inuu ka faa'iideysto co-working space-keeguna waxa uu furan yahay sidaan sheegay qof kasta oo ganacsi bilow leh noocyada kala duwan ee ganacsida loo qaybiyo corporate ka maxaan dhahday dhexe ka kale small-ka ah ee startup-isku iyo SMEs-ku ay ka mid yihiin dhammaantood uu furan yahay co-working space-ku mar hadduu habkii qayb ka mid yahay qof kasta oo ka faa'iideysanaya wuu u furan yahay waana jiraan imika dhalinyaro kale oo aan startup ahayn laakiin iyagu ganacsigoodu dhowr sano jiray oo markaasi si fiican ugu socdo oo sida qoliyaha website-da sameeya developerska loo yaqaano oo kale ay ka mid yihiin ay adeegsadaan laakiin inta badan aragtida co-working space-ka amaba ka faa'iideysigeeda kaliya waxa ka faa'iideysan kara uun ganacsiga waa laba goods and services alaabo iyo adeegyo inta badan wuxuu fursad muhiim ah siinayaa teamka ku shaqeysanaya adeeg services isla su'aal baan jecelahay in aan mar labaadan weydiiyo Maxamed iyo dabcan muna laftigeeda
oo aan waliba si toosan markaa isugu keen gudbin doono su'aasha waxay noqonaysaa markaa dhalinyarada inta badan loo adeegaa dhalinyaro cusub iminka uun suuqa soo galay dhalinyaradaasi hablo iyo inamaba way leeyihiin marka ma jirtaa habluhu maadaama ay ka nugul yihiin inamada marka si loo dhigo adeeg u gaara oo tusaale ahaan dhiirigelinaya habluhu inay ku soo dhiiradaan goobtii maadaama rag imanayaan goobta dee bulsho isugu imanayso goobo loo diyaariyay iyaga salaanaha aan idhaahdo xamaam oo kale qarsoon iyaga u gaara ama meelo kale ay salaada ku tukadaan hawlo noocaas oo kale oo si gaara hablaha loogu sii xiri karo su'aasha waxaan jecelahay inaan maxamed marka hore aan weydiiyo maadaama uu tahay hababku salaanka walaal anaga Bigel Hub oo kale waxa habla nagu jira hablahaas oo ku dhex shaqeysto qaarkoodna ay u shaqeeyaan company international oo like e-commerce ugu weyn Jarmalka oo kale qaar ka shaqeeya qaarna ay yihiin developers iyo remote access qaar ku shaqeeya marka hablaha kale waxaan waliba sii tixgelinaa inaan siino iyaga inaan ku qaabilno horta si ka nugul sida aan dadka kale ugu qaabilno maadaama iyagu habla yihiin waliba aan u space-yada ugu fiican ee aan isleenahay hablaha way maxay yihiin way asturan yihiin inaan siino at the same time ay wax leeyihiin space u gaar oo ay habluhu ku tukadaan oo ay xaagaas salaada iyo ay ku tukadaan waxa kale oo farxad iyo barnaamijkii ugu dambeeyay qabanay ahaa business startups in boqolkiiba 60 baan oran karaya ay habla ahaayeen oo nagu talagalnay waliba hablaha xooga saarnayo ku dhiirigelinay inaan caawino meesha keenay iyaga oo qaarkood taanan space-kii u sii diyaarino u sii dhigno paneliskoodii iyo u soo daabacno xitaa si ayna caqabad kale u hor istaagta aynu uga baqan wad mahadsantahay walaal dabcan oo marka goob shaqo wadaag la doonayo inay dhalinyaro kala duwan oo rag iyo dumar ah isugu jira ay ka faa'iideystaan iyana waxa waajib noqonaysa inaad rag iyo dumarkaaba u diyaariso saaxadii iyo imkaaniyaadkii muhiimka u ahaa goobta shaqo wadaagay markaas imanayaan waxyaabaha aan xusayo harhab ay hablaha u diyaarso waxa kamid ah si guud harhab kantiin bay leedahay kantiinkaasi afka Soomaaliga wuxuu noqonayaa makhaayad ama meherad cuntada lagu sameeyo qofka coworking space-ka ama goobta shaqo wadaagay harhab isticmaalaya halkii uu suuqa ka tagi lahaa waqti badan iyo lacag kaga bixi lahayd intuu sii socdo ama uu qaadanayo dhaweeyo ama uu bas qaadanayo labadaba iyo sidoo kale waqtiga waxa ugu muhiimsan ah inuu intuu qofku wareego xagga dambe kantiinka uu ka dalban karo ama musaace ama qado waxa uu isagu doonayo ama sharaab ama biyo kaliya ama halkaas marka waxay leedahay goob ay habluhu ku cuntayn karaan goob ay habluhu ku tukan karaan oo masaajid ah waxa ka sar ku yaala coworking space-ka agtiisa ama goobta shaqo wadaag agteedana waxa jira iyana qaybtii musqulaha oo u gooniyaha hablaha oo macala hadaanay habla joogin oo isticmaalin aan cid kale furahooda qaadinin oo cid kale la isticmaalin iyana waxa jira oo kale harhab ay leedahay meel la yiraahdo creative garden halka hore banaanka ku soo aragteen creative garden kaasi dhalinyarada wuxuu u sahlayaa kaliya ma aha inay coworking space isticmaalaan haddii tirada dhalinyarada ee markaa kulmaysa ay badato ama ay doonayaan meel ay maskaxda ku tuujiyaan fikrado iyo qorshayaal ku sameeyaan oo adeegyo dheeri ah ku soo kordhiyaan haddii ay doonayaan intay fadhiistaan dabadeetana ay ku fakari karaan maadaama aynu ognahay in uu dhibta ugu weyn ee jirta ganacsatada yarkiisa ay tahay waxa la yiraahdo kirada ama kharashka soo noqnoqda ee joogtada ah dhalinyaradana aysan sheegnay uu yahay inta badan dhalinyaradu aanay gacanta wax ugu jirin markay abuurayaan ganacsi ama ay business bilaabayaan ma jira maaka una waxay ku hayaan kiro oo kale marka ma jira si shakhsiya miya hadda ay dhalinyaradu iyagu iskooda si diiwaan galiyaan ama u yimaadaan oo iskaga bixiyaan inta yar ee la saarayo ee bishii laga qaadayo mise waxa jira kooxo idin yimaada ama ay idin keenaan mashaariic dabcan su'aasheedu waxay noqonaysaa ma jirtaa cid kale oo iyadoo si kooxa ama group inta idin yimaadaan dhalinyarada ka bixisa kharashka ay muddada ku shaqayn doonaan ama kharashka bilaha oo ka caawisa ma jirtaa runtii horta kharashka guud ee coworking space-ka lagu bixiyaa waxa uu yahay mid u sahlaya dhalinyarada bilowga ganacsiyadu yihiin iska bixin karaan harhab waxyaabaha aan ku faanayna ee goonida nooca waxa kamid ah
salahan qofka dhalinyarada ah markuu harhab tababar ka helo maalgelin uu ka helo inta kaliya kuma diin waxaan fursad u siinaa inta qofka dhalinyarada ah intuu suuqa galiyo ee uu la qabsanayo uu soo saarayo macaash 3 bilood oo horeeya aanu lacag la'aan ku siino goobta shaqo wadaagga inuu ugu shaqaysto marka wada dareemi kartaa salahan maanta waxaan ku guda jirnaa bishii u dambeeyay ee sanadka bishii u dambeysay qofka dhalinyarada ah ee bisha koowaad ee sanadkan inuu soo falkala ganacsigiisa bilaaba waxa uu fursad u haystaa inuu ilaa iyo bisha saddexaad aan lacag laga qaadin macnaheedu waxa weeye dhalinyarada mar kale in laga taageero inaanay ka fakirin kaliya lacag laga doonayo inkastoo badnayn lacag laga doonayo iyo kiradii inay markaa maskaxdooda isku qufulin ay maskaxdooda taa bedelkeeda ku fakaraan inay dad kasbadaan ku qanciyaan suuqin badan u sameeyaan maxay dhahdaaye ganacsigooda macaash soo saaraan faa'iidaan iyo philosophically markaanu eegno si ganacsigu maxaan hadaan anigu startup ama ganacsi bilowgi sidee buu uga faa'iidaa waxa loo yaqaano goobaha shaqo wadaagta sidee buu uga faa'iidaa muxuu ka faa'iidayaa inta badan muxuu ka faa'iidaa waa maasanta walaal Saciid horta markaan eegno goobaha shaqo wadaagta ay ganacsatada marka cusub yihiin waxay u fududeynaysaa horta businessku markuu cusub yahay dadka caqabada ku wada qabsto waxa weeyaan waxay u baahan office-kii furniture-kii internet-kii light-kii waxaas oo dhan oo cost gaar oo ku socda ah marka co-working space ama goobaha shaqo wadaagii waxay ka caawinayaan qofkii inay u sii diyaariyaan environment-kii oo xafiiskiisii ka samaysan lahaa dan oo kaasi ugu diyaarsan yihiin dan noqoto furniture-kii hadday noqoto internet-ka hadday noqoto light-kii iyo hadday noqoto space-kii oo munaasib u ah in loogu soo booqan karo oo loogu iman karo qofkeedu doonayo inuu dad la kulmo ama cid ganacsigiisa u bandhigo oo noqonayo office u gaaro isaga oo ku shaqaysto laakiin waa private office baa kuwaas oo gooni baa loo jarjaraa qofku markuu cusub yahay waxa kale ka fikirayaa inuu salaamka anagu kale biglo kale waxay leedahay dhalinyar baa jirta la yiraahdo organization qaar ah oo qaarkood jaamacadaha iyo waxaas ay siiyaan ardayda intay u yeedhaan salaamka ardaydan awoodi bay ka xeeyaan waxay ku yiraahdaan jaamacad buu geeyay ka daa intaas oo percentage ka daa marka groupkaas oo kale waa iskale ilaa dhowr qof baa iskale faa'iido intee leeg bay siinaysaa yani marka uu qofku co-working space ama goob shaqo uu helo uu ku shaqeeyo iyo markuu isagu iskii uu xafiis uu ku shaqaysto yani faa'iido intee leeg bay siinaysaa maxay si ku kala duwanaan karayaan walaaleen faa'iidooyinka ugu waaweyn ee qofka dhalinyarada ee markaasi ganacsigiisu bilow yahay uu ka helayo inuu isticmaalo goobaha shaqo wadaag ee harhab ka mid tahay waxa ka mid ah sida Maxamed ba sheegay qofka dhalinyarada ah marka uu ganacsi bilowbo oo yar walibana uu leeyahay waxa caqabadinteeda leega inuu helo meesha uu ka shaqeynayay oo miiskii uu fadhiisanayay kursigii internetku isticmaalayay biyihii isticmaalayay meesha nadaafadeedii laga yaabaa security-geediina qayb ka yahay iyo la talin haddii uu u baahdo inuu helo macnaheedu waxa weeye co-working space isticmaalkiisu waliba taharhab dhalinyarada waxay ka saacidaa intaas oo dhanba waxaan u sameynay deegaan xasiloon oo u diyaarsan in lagu shaqeeyo qof kastaba inta waxa dheer kaliya ma aha goob shaqo kaliya ma aha inuu qofku helayo fursad dheeri ah qolka shirarka ay ka dhacaan harhab ee weyn inuu isticmaali karo laakiin co-working space-ka dhexdiisa ama goobta shaqo wadaag dhexdeeda waxaan uga sameynay goobo yaryar oo kooban oo loogu talagalay shirarka degdega ah tusaalahaan inaga oo meel shaqo wadaag ka wada shaqeynayna ayuu adiga telefoon kugu soo dhacaya amaba aad leedahay shir zoom-kaad ku gelaysaa dadkii waa isku badan yihiin kuma saamaxayso inaad halkaa shir ku gashaa waxaan u sameynay markaa goobo waan idin geyn doonaa xagga sare ku yaalaanay meetingka ama shirka degdega ah iyo telefoonka degdega ah iyo zoom-ka degdega shirka iyo cidda degdegeed u baahan tahay inaad la shirto aad markiiba intood kacdo meeshaadiina ku dhex taalla aad xidhan karto leh AC-giyo marooxadii iyo sidoo kale waa qolal gooniya maadaama ay dhalinyaradu aanay laga yaabo inaanay si fiican ula haysan goobaha shaqo wadaag oo kale ama aanay ku baraarugsanayn waxaad bal aad la wadaagtaa wixii tale aad u soo jeedinaysid hadday tahay sida isu diiwaan gelin karaan sida ay u heli karayaan faa'iidooyinka si guud aad soo sheegtay oo dhan oo aad soo koobaysid ay ka heli karayaan
walaal dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa dhowr qodob aan isleeyahay muhiim bay u tahay kow dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa inay fikradahooda tolmoon ganacsi dalka dadkaba anfacaya aanay la gabanin oo markaasi ay ku dhiiradaan inay soo bandhigaan raadsadaan meelaha fursadaha ay yaalaan sida Harhab oo kale waxa kale ku dhiirigelinayaa inay iyana fursadda goobaha shaqo wadaag waa inkastoo tahay fikrad inagu cusubsan hore u wada sheegnay dhamaanteenba haddana waa mid kamida waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta dhalinyaradu dalkeena ka heli karaan inay iyana taas ka faa'iideystaan oo maxaa dhahdaa ay fahmaan Harhab ahaan waxay ka heli karaan adeegyadaas oo dhan sida ugu fudud ka heli karaan waxay Harhab waxay leedahay dhammaan platformyada baraha bulshada tahay Facebook Twitter YouTube website-ka Harhab oo ay soo booqan karaan dhammaan macluumaadkaasi sida loo helayo ay ka heli karaan iyana sidoo kale waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada inay inta fahansanay dhalinyarada kale ee dhigooda iyagana ay fahansiiso oo markaasi inta isticmaashana ay dhalinyarada kale dhigooga talaan anagu Harhab dhalinyarada isticmaasha waxyaabaha aan ku faano waxa kamid ah inay dhalinyaro kale oo ay ku soo qanciyeen ku dhiirigeliyeen iyagoo oo wixii fahansadaba noo yimaadeen anaguna aan u sharaxnay ku qanceen sidii ay shaqadii ku bilaabeen marka aad iyo aad marka waxa weeye waxaan aaminsanahay in dhalinyarada isticmaasha co-working space-yadu ay yihiin fariinsidayaal iyo wakiilo dabcan wixii fahansan oo markaasi annagana noo ah suuqgeyn dhinaca kale markaad ka eegto si guudna dhalinyarada Soomaaliland u fahansiin kara muhiimadda ay leedahay goobaha ka shaqo wadaag ugu dambeyn waxaan isagana u dhiibayaa Maxamed oo bal aragti iyo dhiirigelin iyo talaabo uu isaguna la wadaagayo dhalinyarada horta marka hore ku horeeyo dhalinyarta iyo marka ay noqoto ku dhiirashada inay ganacsi abuuraan iyo inay skill samaystaan caqabadaha ugu badan dhalinyartu ay ka baqaan waxa kamid ah inay ka baqaan waxa laga yaqaan skills waxa xirfadana hadda xirfad lahayn oo xirfad kaga duwan dadka kalena aan lahayn kuma soo tagaysan wax badan qabsato marka dhalinyarta waxaan ku talinayaa koow inay marka hore xoojiyaan xirfadaha ay baranayaan oo iminka adduunka soo socda ku socda technology haday noqoto noocyada loo yaqaan TV centerka oo ay kamid tahay waxyaalaha iyo dawaarkii iyo kale iyo waxa loo yaqaanay farsamadii gacanta dhameystiran inay bartaan oo ay isku dayaan qofku waa adigoo jaamacad ka soo baxay waxaan baran karaa boqol farsamo gacan oo kale oo hadii aan jaamacadii iyo aan ku waayay wax aan ku xoogsan karaa kadibna hadafkii aan lahaa aan ku soo gaarsiin karaayo income fiican tan ka sameeyo wixii aan doonayay aan bartaa ka bilaabi lahaa marka waxaan oran lahaa horta koow haba ka cabsanin fikradiina inaad banaanka keentaan oo soo bandhigtaan koowna kana cabsanin inaad co-working space-yada iyo goobaha shaqo wadaaga aad ku soo biirtaan oo ifan waxaad ka heli doontaan kabiil ahaan waxaad ka heli doontaan talo ku saabsan noqoto business-kaaga iyo haddii noqoto inaad skill ku dhisanaysid ku saabsan shaqooyinkaaga aan dhalinyarta aad ugu xoojinaya waxa weeyaan waqtigooda inay ka faa'iidaystaan social media-hani waqtiga badan la gelinayo ay u geliyaan skills fara badan oo ku saabsan isla social media ay ka faa'iidaystaan ay bartaa ka dhex shaqaystaan kulankeena nooca oo ku saabsanaa nidaamka goob shaqo wadaag ama wax loo yaqaan afka qalaad co-working space waxaan jecelahay inaynu intaaynu ku soo koobno inagoo barnaamijyo kale oo kuwan la halmaalanaynu dib ka soo bilaabi doono ama ka sii wadi doono waxaan jecelahay inaan si gaar ah ugu mahadnaqo Maxamed Caawil oo ka socda Bigel Hub oo dabcan wax badan iyo khibrad badan in la wadaagay adeegyada kala duwan ee Bigel Hub ay bixisa ay ku soo kordhisay suuqa shaqada ama suuqa ganacsiga ee Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaalida oo dhan wax badan inuu ka iftiimiyay xogo wax ku oolana la wadaagay ganacsatada yaryar ee abuur kale kuwa maagan iyo kuwa ku dhex jira hadda aad baan ugu mahadnaqayaa Maxamed Caawil mar labaad iyo Bigel Hub waxaan si la mid ah aan isagana iyadana aan ugu mahadnaqayaa dabcan walaashay Muna Maxamuud oo iyaduna ka socota Harhab dabcan oo iyaduna khibradeeda iyo waaya aragnimadeeda iyo adeegyada ay Harhab ay ku soo kordhisay ma dhalinyarada ay siiso dabcan dhinacyo badan taabanayay ay inala wadaagtay waxtar weyn bay leedahay wax ku ool bay tahay dhalinyarada saytalada ay u soo jeediyeen inay weelayn doonaan ayaynu insha Allah ku rajo weynahay oo ku dhiirigelinaynaa ugu dambeyn waxaan si gaar ah iyo si guud bayagana aan ugu mahadnaqayaa oo salaamaya asxaabtayda halkan muddada
badan loo taagneed ama ina ka caawinaysay inuu barnaamijkani uu inoo qabsoomo ay ka mid yihiin Mustafa iyo saaxiibadiisa saaxiib walaal mahadsantihiin intaa wixii ka dambeeya waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wuuna inoo xidhan yahay.